maxkamadda gobolka Togdheer ayaa xukun ku riday 506 dhalo oo muqaadaraadka khamriga ah kaas oo ay soo qabqabteen ciidamada booliska gobolka Togdheer. Xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer Jaamac Ducaale iyo garsoore Maxamed Jibriil Cilmi oo ah garsooraha xukunka ku riday muqaadaraadkan la soo qabtay ayaa ka warbixiyay qodobada kala duwan ee ay cuskadeen kiiskani iyo xukunka lagu riday dadkii faldambiyeedkaasi loo haystay. maanta halka kan waxaynu isugu nimid inaynu ku burburino khamri dhan 506 xabo. khamriga waxa lagu qabtay darawalkii waday uu baxsaday. booliisku markii ay ku soo dhawaadeen uu baxsaday uu cararay laakiin waa la aqoonsaday. waxa kale la soo qabtay ninkii gaariga lahaa. markii maxkamaddu dhageysatay ninkii gaariga lahaa markhaatiyaashii la keenay waxa caddaatay inuu aanu waxba ka ogeyn oo u dhibtay inaan ninka daroolka ah aanu waxba ka ogeyn siday maxkamadda ka caddeeyeen way sii daysay maxkamaddu waxay xukuntay darawalkii Cabdiraxmaan Muuse Maxamed oo maqraan kaasoo ay ku xukuntay 3 sano iyo 3 milyan oo ganaax. waxaa loo cuskaday xeerka muqaadaraadka qodobkiisa afraad baragraafkiisa koobaad xeer 21202 وحيرك خمرجة مخدرات waxaan halkaas ku nimidnay khamriga tiradiisu dhantaay 506 litir oo muddo khamriyadii ugu badnaayee gobolka soo mara ayaanu hawshiisii haynay kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri haddaad khamriga iska diin weydaan dagaal ilaahay u diyaar garoob nimanka ilaahay la dagaalamaya dagaalka ilaahay kula jiray ummadda ku fasaadinaya khamriga ee waa in dhinac looga soo warjeestay khamriga waxa lagu soo qabtay mulkiilihii gaariga iyo ninkii waday oo maqanaha ayo baxsaday waxa maxkamadda u cadaatay mulkiiluhu inaan waxba ka ogeyn gaariga inaan waxba ka ogeyn kadib maxkamaddu way sii daysay eedeysanii la aqoonsaday baxsadayna maxkamaddu waa xukuntay isagoo maqan. taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer gaashaanle sare Axmed Aw Cali Shabeel iyo taliyaha saldhigga Aadan Saleebaan ee qabtay khamrigani ayaa ku nuuxnuuxsaday dagaalka adag ee kula jiraan ciribtirka khamriga la damacsan yahay in lagu fasahaadiyo bulshada. nabadgelyo xumada koob ku yahay khamrigu dilka dhaca kufsiga amaan darrada diincayga aqsunaas oo dhan waxa weeye abiis weeye marka bulshada iyada iyo dalka iyaga iyo dadka iyaga saan u saameyn habeen iyo maalin ciidanku waxay ku hawlan yihiin si ula dagaalami lahayn marka ninkii darawalka ahaa si xumo uu ka booday uu cararay wuxuu ogyahay inuu ciqaab adag mudanayo waa naxariis waalin booliiska agtiisa iyo garsoorka. dhibaatooyinka ciidanka booliiska ka haysta khamriga waxa ugu badan waa dadweynaha ama taksiilaha ha ahaado ama ninka loo suuqa joogaba ha ahaade iyagaa naga diga baabuurkii markuu halkaa soo marayo soo galo waxa la nooga soo sheegaa tuulooyinka xadka oo la yidhaha khamrigii baa soo socda markaanu ku baxnana bahalkii meel kale ka wareegaa oo naga baxsadaa waxaana u digaya dadkaa u digaya ciidankana waxaan ku ammaanayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin halkaasaa ka wadaysaan. Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike Horyal TV Burco.